بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaan ka hadlaynaa maamulidda waqtiga qofku sidiisaba wuxuu ka kooban yahay waa maalmo haddii maalin ku dhaafto qayb ka mid ah tagtay waana kugu soo noqonaya maalin ka dambaysa waxaad u sii socotaa aakhiro iyo cimrigaaga oo si yaraada haddaba waqtigaaga sideeba uga dhigi kadhaa mid aad ka faa'iidaysatid halkan waxaan kugu qeexayaa 6 qodob oo ku saabsan sida waqtiga loo maamulo waxayna kala yihiin inaad qortid inaad qeexdid in aad qaab isticmaashid in aad leedahay waxyaabo aad joojisid ama waxyaabaha qaybtood aad joojisid inaad qorshe maalinle ah leedahay iyo mid noloshaada oo dhan ah tan koowaad waa qor wax walba oo aad damacsan tahay waa inay ku qoran yihiin dadka badankood haddii la weydiiyo waa maxay yoolashaada ama maxaad hiigsanaysaa qof ku tusi kara yoolashiisa oo qoran aad buu u yaryahay markasta oo yoolka la qoro waxay kaa saacidaysaa fulintiisa labo qeex oo ah wixii marka aad qortay kaba soo qaad tusaale ahaan waxaan niri 20 sano soo socda waxaan rabaa inaan noqdo milyaneer waa inaad qortid 20 sano sanad walbaba sida aad ku gaari lahayd yoolka aad qeexatay oo sanad walba aad u qaybisid milyaneernimada ama inta aad rabtay inaad heshid kadibna aad tiraadid sanadkaas waxaan rabaa halka inaan gaaro sanadka ku xiga inaan halka gaaro sanadka ku xiga inaan halka gaaro tan saddexaad waa qaab badan baa jira oo waqtiga loo maamulo waxaana kamida qaabka la yiraahdo Pareto oo ah in hawl kasta oo aad qabanayso ay jirto 20 kamid ah ama 20% haddii aad qabatay 20% kaas ay tahay 80% kale wax u dhigma inaad qabatay oo ah hawsha inta ugu muhiimsan qaab kale jira oo la dhaho degdeg iyo muhiim iyo degdeg waxaan ahayn waxaan muhiim ahayn kulli dhamaantood ayagoo jadwal ah baan idin soo gudbinayaa qodobka afraad waa inaad jiraan waxyaabo aad qorshaysay inaad joojisid ama liiska waxyaabaha iska mamnuucday waqtiga waxyaabo badan oo dhumiyaa jira sida in aad waqti badan aad Facebook ku dhumisid ama YouTube ama sheekooyin kale ama hawlo kale waxyaabo waxa jira ogtahay waqtiga aad ku dhumisid faa'iidana aan kugu soo celinayn waxyaabahaas marka waa inay ku qoran yihiin markasta ay ku qoran yihiin waxa leedahay kaba soo qaad 20 shay baan qortay oo aan rabay inaan joojiyo bishaan shayga koowaad baan joojinayaa shayga labaad bil walba haddii aad shay ama laba joojiso waxay ka saacidaysaa inaad noqotid qof joojiyay dhammaan waxyaabihii waqtigiisa dhuminayay waa inaad leedahay qodobka shanaad waa inaad leedahay qorshe maalinle ah maalin kasta subaxdii aroortii salaada kadib intii aadan soo bixin waa inaad qortid waxyaabaha rabtay maanta dhan inaad qabatid saacadda aad qabanaysid xilliga aad qabanaysid si maalintaas ay kugu dhamaato adigoo oo ka wada faa'iidaystay qodobka ugu dambeeya waa inaad qortid qorshaha noloshaada oo dhan noloshaadu waa maalmo waa sanado waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto waxa kugu waajiba inaad leedahay qorshihii iyo road mapkii aad uga faa'iidaysan lahayd si noloshaada biri ka maalin ama markii aad weynaatid markaad gadaal u jaleecdid aad ogaatid inaad yoolal waaweyn soo xaqiijisay intaas waxaa ku dhan 6 qodob ee ka faa'iidaysiga waqtiga haddii aan soo dulmaro waa inaad qortid yoolashaada waa inaad qeexdid oo faahfaahisid waa inaad qaab isticmaashid oo ah farsamo kugu saacidaysa waqtigaaga inaad ka faa'iidaysatid waa inaad leedahay waxyaabo aad joojisay ama liis aad samaysatay waxyaabaha aad iska mamnuucday sidoo kale waa inaad leedahay qorshe maalinle ah iyo qorshe noloshaada oo dhan
haddii aad ka faa'iidaysatay fiidiyogan fadlan la wadaag asxaabtaada si ay ayaguna uga faa'iidaystaan waa walaalka Cabdullaahi Buutaan oo idin leh sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh